adigana waa ku daashay anagana waa nagu daahis siyaasadda dawladdu inaanay ahayn in caruurtaada iyo walaalada iyo dadka guriga ku jooga 10 baan hadda shaqaalaysiiyay 10 kalena waan shaqaalaysiinaya wasaaraddiina ay tiraahdo waxaan ka shaqaynaynaa sidii dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo u heli lahaayeen waxaan xog ururin ku saabsanaynaa sababta shaqo la'aanta soo tan loo sheegay dadkan meel walba ka dilan yahay wasaaradda beeraha waa ka dilan yahay hay'adda wasaaradda oo xoolaha anada xoolaha waa ka dilan yahay hay'adda wasaaradda warfaafinta waa ka dilan yahay senatarka sheegay ciyaaraha taageerayaashay lahaa jireen meel la kala joogsado ma jiri jirin ayaga la isku dagaali jiray taageera hebel taageera qorayna ahayn maan waa la isku fiiri jiray saasay taageero u lahaayeen waxaad noo sheegtay hal garoon oo hadda la dhisaayo isagana waxaad tiri walaad dhisayso dhaqaalaheeda markay dhistana waa ka aruursahe ilaa ay uga dhammaato sababantay waa la maalgeliha waa saan sheegay waa qolaa maalgelinteeda ilaa ay ka dhammaysatana iiday u aruure faa'iido aan ku qabno male wasaaradda isboortiga nabaad meehi dhaqaalaha ka soo bixi jiray ka mid tahay already waa naloo sheego xukuumadda waxay nagu tiri sababta dhalinyaradu shaqaalayeen waxa weeye qofka xafiis jooga ehelkiisu geynaya marka uma baahna xog ururinba marka taa waxaan filaynay ma rabno xukuumaddu shaqo fiican bay ka qabatay shaqo abuurka 3,000 oo macallin bay wasaaradda waxbarashadu samaysay ilaa 15,000 oo dhalinyaro ah waxay ku biireen ciidamada qalabka sida waxaas oo dhan wajahayn dhalinyaro waan ognahay inuu systemkii baan ku jirnaa laakiin markaan halkan ka baxno inuu banaanka tagno dhalinyaradii qalbigoodii waa dhaawac 20 ku waxa ka xoog batay hadalka xukuumadda marka taana bal waxa idinka meel yaala si aad u daaweyn lahaydeen dhalinyarada ayaan rabaa wasaarad ahaan maadaama tiin wasaaradda dhalinyarada oo mas'uul ka tihiin inaad bal aad la wadaagtaan aqalka sare iyo senatarada iyo ummadda Soomaaliyeed aad u mahadsantihiin قشاولتك يعني قشاولتك وصح أنا وأنا لو يدي واحد وما لو ماشي هنا أنا سؤال شيء كوين عيارها ما موقضه ما جاء معنيه أولها يعني سيدو هاجر برسمات واردا عياره حكام به meelaha dalkeenu ay ka saameysay maxaa la dhahaa burburka annagu laakiin ka wasaarad ahaan waxaan qorshaheeda wadnaa hadda sidaan ku soo celin lahayn muddo 30 sano ku dhow ama ka badan ayaa gacanta waxa ka maqnaa xarumaha fidiyada sportska wasaaradda maamuleen laakiin sababana anaga hadda markaan nimid waxaan ku guuleysanay dhammaan xarumaha garoomada dawladda oo dhan inaan استجمد واوين إن أنا قعدت دولة كسر علينا وزارتنا إمام مش وحين أسمي أجاسمان أسمي أجاسمي واحدة قرامة لنا وبرسمات كي الحاجر سيدا سلم إذا حتى وحين أقول لي درد أو دم جمعي وحين وفرني كوكا دوكسية السرة درك برسمات كالقبجري حتى قول كبنادرنا نقبل هذا قبل هذا نوار جيلنا استجداد لنا جارسينا مركور حال كائنا كهير جيلنا كدم استجداد tan kale markaan u nimid ciyaarihii kooxihii horyaalada dheeli jiray macnaha lahaan jiray xiisaha lahaan jiray muxuu u xiiso been walaalkaas su'aal oo ragiina odayaasha seniorska ah aan maalin kasto la shaaxno aan weydiino khibrad ahaan iyo wixii waayaragnimo ay noogu dheerihiin wixii sidii lagu soo celin karo
waay annaga marka falkeedii iyo wadadeeda waynu haynaa hadda laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa dhowaan inaan ku soo celin doono sidii barsimaadkay ahayd laakiin wax aan ka fadhino maaha waxaan hadda gacanta ku hayno waa insha allah laftiina marka odayaashii dalka maadaama tihiin laftiina odayaashii sanadka aad tihiin